سؤال شيء نوع تنبيسا ويجاني وسؤال كانتي آد وحنون بدن كل أنا أقول مركي متقنا أن أخريي أن آدنا إيجا بسي أن وحي كذا عضي أن قربها ولي بوضن كان يوسي سألك صادر صدي وجبر ويان وحي آد دريميسا إن ماركت للدلمي وحي ترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن شاقة إيه ولا لها بآد بنو سلامية إلهنا سبحانه وتعالى هبركيه waxay tiri waxaan ahay gabar Soomaaliyeed waxaan ku heshiinay wiil isaguna Soomaaliya inaan isguursano waxaan ku dhahay aroos weyn ku xiri maayo alaab xoogaa qaali ah iigad wuxuu damcay in uu alaab yar oo raqiis ah igu soo xirayo bay tiri wase hadalka u dhigtay waan ka diiday bay tiri muddo yar kadib uu igu soo noqday oo wuxuu igu yiri bay tiri waan ku qaldanaa arrinkii isaga ahaa waxaad istaahishaa alaab wanaagsan in lagu gado alaabtii aad rabtay tu ka qaalisan ayaaban ku dhigaya waxaan ku dhahay tiri waxba kharash badan ha isgeline tii aan rabay le aniga ii dhig bay tiri oo si hadalka u dhigtay gurigii buu kireeyay bay tiri wuxuu ii soo dhigay bay tiri alaab aad iyo aad u qurux badan oo weliba qaaliyoon aad aan ula yaabay aniguna aan aad u jeclaaday bay tiri meherkii markii uu dhacay kadib ayaan gurigii mataqaanayay galnay oo wanu mataqaana guri galnay 3 bilood markii aan wada joognay ayaa waxa nagu soo garaacay bay tiri albaabkii 4 nin oo xoog waaweyn oo ka socda meelaha alaabta lagu kireeyo ee la dhahaa rent center hurdadii fadhigii qadadii yani kulli wixii meesha noo yaalay oo dhan waa ay qaateen anoo yaaban ayuu wuxuu isagii igu yiri waxaanan awoodi karin ayaad igu xirtay alaabtan waan soo kireeyay haddaad alaabta guursatay waa la qaaday hore u sii raac haddaad aniga i guursatayne wixii mataqaan anigii waan joogay ila noolo oo wixii aan ku awoodi karo ayaan ku dhigaya hadda gabadhii waxay tiri waxa aan ku noqday gurigii hooyada iyo aabahay ninkiina weli dalqadii waan isqabnaa laakiin xal baan doonayaa waxaan aad iyo aad u dareemayaa khiyaano weyn oo ninkaasi uu geystay sheekh abudalxo maxaad igu talinahay bay leedahay يتفضل مشكورا وماجورا. بسم الله الحمد لله وبعد gabadhaasi waxaan kula talin lahaa nin waxaa la yidhi reer baadiye ah ayaa wuxuu u soo sahan tegay reerkiisii iyo xoolihiisi marka meel waraabuhu uu caan ku yahay iyo dhurwaaga ayuu ninkii sahmiyey kadibna markuu waraabihii arkay ninkan inuu meeshan ku qancay ayuu la hadlay waraabihii baa hadlaya wuxuu ku yidhi nin yahow halkan reer iyo carruur ha keeni ninkii waa tegey oo halkii ayuu keenay maalintii u horreysayba dhurwaagii ama waraabihii baa neef la ordayo ninkana waa ka daba orday waa gaari waaye dhurwaagii intuu gadaal usoo firay wuxuu yidhi niyow shalayna waa tala xumayd maantana waad orod daran tahay buu ku yidhi niyow shalay waa tala xumayd horta gabadh yahay shalay baa tala xumayd horta nin daki oo caqli badan baa ku helay nin daki ah oo horta caqli badan duruus fara badanna damcay inuu gabdhaha Soomaaliyeed ee ka hormariya jacaylkooda iyo xubbigooda alaab wasakhoodaysa oo boorka laga tirtirayo ku qasabta ninkii oo ku adkaysa oo wada faa'iidaysata jacaylka uu jecel yahay ayuu horta darsi ninkaas siiyey anoon ku waafaqsanayn qaabku u dhigay laakiin ka mas'ala waana wax ay gabdhuhu inay fahmaan la doonayo ninkan waad ogtahay tabartiisa ee maxaad waxa noogu qasabtay hadda waan ku farxay baa tidhi waxaad ku faraxdaan garan waayeyba ma waxaad ku faraxday ninkaagii inuu intaas oo dayn ah oo culays ah uu dusha ka fuulay miyaad ku faraxday sidee kula raaxaysan karaa sidee buu gobasha u qaban karaa soo habeenkii isgedgedin mahayo isbedbedeli maayo habeenkii oo dhan markuu banaanka u baxo soo gadaal kaasoo habaari maayo warqad kastoo soo dhacdo intaasoo lacag oo bishay mushaarkii oo dhan soo idin kalena ka qaadan maayo bil walbaba soo abaar socoto iyo dayn ma
gabdhaha soomaaliyeed wiilasha markay guursanayaan waxyaalaha daruuriyaadka ah wax ka badan yeena ku qasbin. wax muhiima la doonaya. waxaa laga yaabaa hadda lacagta lagu soo gadayo waxa inuu waalidka u baahan yahay, inuu aabbaha u baahan yahay, inay hooyada u baahan tahay, inaad sadaq ahaan u baahan tahay. soo farqi kuma dhexeeya adiga iyo gabadha tidhi warniyow meeqaad iigu dhigaysaa meher intaa. agoon magaaladii aan ka imaaday agoon degan baan rabaa in ceel loogu qodo, adiga gabadhaas soo farqi idinma dhexeeyo marka? haa, farqi weyn baa idin dhexeeya. mas'aladu marka waxaan gabadha leeyahay, horta shalay waa tala xumayd, maantana waa sii orod daran tahayo waxaad leedahay guriga hooyadii baan joogaayo waxay ahayd inaad ninkaa faraqa ku dhegto oo dhahdo raalli ahow xabiibi wa zawji alghaali dalamtuk. adaada dulmaa sheeganaysaa, adaada dulmaa sheeganaysaa sooma, adaa dulmiga sameeyey sooma, oo ku qasbay ninku wuxuusan qaadi karin. sidaa daraaddeed inaad dhahday ahayd iga raalli noqo, waxaan guursaday waa run, alaab ma ahayn, firaash iisoo dhig. firaash iisoo dhig. taa weeye horta midda kuu fiicnayd. haddana waxaan kugula talinayaa soo laabo, ninka u soo laabo. waxaad dhahdaa wax alla waxaad ii dhigtabaa raalli ku ahay. sariirahan ku wada seexanno, musqul waa musqul, sariirna waa sariir, cuntada waa cunto, musqushaa la geyn, subaxina yani sariir macquula dad ku seexato. ninkaaga oo jidhkaaga iyo jidhkiisa isku dhawaadaan baa kaaga fiican adigoo sariir weyn laguu dhigo cajiiba oo iska dadaawada oo maalin walba boorka ka jafa. kusoo noqo zawjkaagii waa haddaad imaqlayso wey. waa haddii talada lagu siinayo aad rabtay tala caafimaad qabta in lagu siiyo. dib ugu soo laaban ninkaaga iyo zawjkaaga. laa yukallifu llahu nafsa illaa wuscaha. qofka wuxuusan awood u ahayn lama saaro. ilaahay cibaadadii buu leeyahay fattaqu llaha ma istatactum walow khaatama min xadiid. saxaabi baa lagu yidhi war wax yani bal cala alaqal bal soo raadi walow khaatama min xadiid. cabdiraxmaan bin cawf awlim walow bishaatin, wal neef ri-ada allah ka dhige bal wuxuuna aroosame. waxaa weeyaan istitaacada iyo awoodda qofku hadduu ka boodo natiijadeedu waxaa weeyaan man istacjala bishayin qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi. shay hadduu qofku ka degdego waa lagu ciqaaba. usoo noqo zawjkaaga insha allahu tacala hadii la yidhahdo. adiga labadaa kelimaan ku leeyahay. ninka waxaan leeyahay gabadhaas ilaahay ogamaada baqin. waxay ahayd gabadhaasi sariix oo cad inaad dhahdo aniga awoodaydu waa intaase, tabartaydu waa intaase, ma igu qaadanaysaa? haa maya. hadday ku dhahdo maya maca alfi salaam, tu kugu qaadanaysaad heli lahayd. laakiin inaad intaad ka soo qaado maxaa la yidhahdaa aad hunguriga ka soo rido oo dhahdo intaasoo alaabaan kuu dhigay, kadibna habeen uun gabadha guriga joogta ay ciidan xoog badan ay meesha soo galaan, taa ayadana waxaa weeyaan gabadhi bay dhinac kale ay ku tahay sharaf dhac iyo ihaano. wa in kaana aan sheegay inuu darsi ku jiro gabadh kastoo soomaaliyeed oo darsi ugu jiro. gabadhaadi soo cesho, wixii bood ahoo soo gaari ka tirtiro, waxaad awoodi kartana u dhigo oo adiga tabartaada marna aan ka badnayn ood adigu og tahay. oo dayn iyo deeq waxaad heli kartaba guri wanaagsan ay gabadhu ku faraxdo sida gabdhaha soomaaliyeedba loogu dhigo ugu dhig. gabadhana waxaan leeyahay gurigaaga ku soo laabo. ilahay waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala inuu reeraha muslimiinta iyo daayarta intaba ilahay inuu tawfiiq dhigo subxaanahu watacaala, qalbigoodana uu iskugu soo dhoweeyo. wa ilaa hunaa halkaa ayaan kusoo gebagabaynayaa. wajazakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum waaxsan allahu ilaykum. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu.